السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu wada ognahay in xilliga aynu hurdada galayno ama aynu seexanayno in dadka qaarba nooc gaar ah ay u seexdaan sida dadka qaarkood inay u seexdaan dhabarka qaarkoodna dhinacyada qaarkoodna u seexdaan beerka waxa haddaba arrin caafimaadka qofka khatar ku ah lagu sheegay in loo seexdo beerka waana arrin dad badan caado u ah in marka ay seexanayaan ay beerka u seexdaan iyadoo ay dhici karta inaanay ka warqabin khatartan la sheegay inay leedahay u seexashada beerku waana arrin inta badan ay samaysay carruurtu inay beerka u seexato haddaba dhibaatada la sheegay inay ka dhalan karto beerka oo qofku u seexdo waxaa ka mid a inuu qofku ka qaadi karo qoor xanuun ama qoorta oo qofka xanuunta isla markaana dhibaata ay soo gaari karta neerfayaasha halkaa mara waxaa kaloo iyaduna ka mid a inay arrintani sababi karta dhabar xanuun iyo dhibaato caafimaad darro oo soo gaadha dhabarka waxaa kaloo hurdada noocani ay daciifisaa waxyeelana u geysataa murqaha caloosha waxaa kaloo keenaysaa u seexashada beerku inay adkaato inuu qofku si fiican u neefsado xilliga uu hurdada ku jiro maadaama laabta qofka uu saaran yahay culays badan xilliga uu hurdada ku jiro تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي